oo ku baaqayna oo aanu hawsheeda wadnay intii wiigan ba ahayd hawsha Ali Said baanu wiigan ku hawshiisa ku jiray labada dhinacna waa soo mareen oo way bixeen labada walaalaha ay gacantu kala gaadhay waxaanu ku baaqaynaa waa nabad wax dhacay wax ma soo celiyaan laakiin se waxa dambaa la qabtaa waxaanu ka codsanaynaa labada beelood ee walaalaha ah ee aabuhu wada dhalay ee halkan isku haysta gobolka Togdheer koonfurtiisa magaalada Burco koonfurteeda waxaanu leenahay waa nabad haddii Ilaahay idmo waxaanu ku baaqaynaa inaanu wax ka qabanno xaaladda haddaanu nahay beelweynta habar jeclo iyo beelweynta Arab ee gobolka degan inaanu wax ka qabanno xaaladda walaalahayo waxaanu ku baaqaynaa haddii Alla ka dhigo nabad cidda nabad diidda ee aanu ka weyno walaal baan u nahay laba dib laanu qabanaa garbaduu baanu xidhayna waxaanu leenahay walaalayaal nabadda qaata oo ogolaada wixii tagay waxa la yidhi wax dil waxa ka ron wax dilin colaadna waxa ka wanaagsan nabadda ku soo noqda walaalnimada ku soo noqda aad iyo aad intiina saddexda maalmood ahayd waxba ma dhicin way idinku amaanaynaa ka digtoonaada wax dambe oo dhaca annagoo ah ergooyinka isxilqaamay ee beesha habar jeclo iyo beesha Arab ama Cabdalla Arab dhammaanba meelaha shaqaaqooyin ka jiraan ee Somaliland waxaanu u diranaa baaq nabadeed khaas ahaan waxaanu aad iyo aad baaq nabadeed ugu diraynaa waxaanu waaninaynaa waxaanu aqal celinaynaa waxaanu Ilaahay u baryaynaa inuu nabad ku soo dabaalo dagaalada ka socda ama shaqaaqooyin ka dhacay Ali Said iyo inta la halmaasha iyo ciilaf weyn inta lamid ah waxaanu idin leenahay walaalaha iyaati gacan baynu wadanahay haddii gacantaada far ka mid ah xanuunto gacantooda way xanuuntaa dhibta idinku taala way inagu wada taala waynu u wada dhalanay ma kala maqnaan karo waxa weeyaan isku naf baynu nahay walaalayaal dhibaatada joojiya Ilaahay ma ogola oo aqliga waxaan ma ogola oo dantiya wada noolaanshiyo ma ogola colaad walaalayaal in dhiig islaam la daadiya waa ceeb oo waa ciqaab oo waa diin ka bax in dhiig walaalka oo islaam kula ah oo kula dhashay waa isku aabiyo hooyatiin oo meel ku wada nooshiin oo aan danihiinu saacadna kala maarmi karin inaad u degdegtaa waa ceeb waxaanu idin leenahay walaalayaal intii khasaar inta haynoo haado uu inagu wada dhacay wixii khasaar meesha ka dhacay inta khasaar haynoo haado aad iyo aad bay ragaasi tulima idin baryeenay nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ansur akhaaka zaliman aw madluman waxa yiraahdeen saxaabtii la joogtay haddii la dulmayo garanaya hadduu isagu wax dulmayo sidaa baanu ugu heelinaa ka qabta buu yiri ninku hadduu xumaan iyo muxuu ahaa waxuna sameeyay ka qabta wuu ku heeliyay war idin baryi mayna gacan baanu idin la imanaynaa waxa xaq uu yahay waa idin sheegaynaa idinna kala heelin bayno isku kiin eegin bayno waayo dad tol kale iyo dad kale oo aan ku tiirsanno ma lihin cadowbaa inahaya kaynu isu kaashan lahayn haddaynu u danayno innaga unbaa khasraanina dagaal baa la yidhi wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho waxaan ka tirsanahay beesha Arab bari waxaanaan deganahay birkadahaygu yaaliino reerkaygu yaaliin meesha la yiraahdo Ali Said ee shaqaqada ugu horreysay ka dhacday xog hayaanu ahay nin baa waxa la yidhi war xidig quwad yaa jira xidig qubad annaga min dhawaan nagu daateen buu yiri annaga waaba nagu daateen dhibtaa meesha ka dhacday ee soo noqnoqotay kuwa isku ridaya istilaya waa la qabnaa waxaanu leenahay walaalayaal dhibtaas anana waana saamaysadoo reerka saddexaad meesha yaal baanu nahay waxaanu leenahay walaalayaal caqligu ha shaqeeyo joojiya dhibta aan faa'iido soo sidin joojiya war ilaahay ka baqo dad islaamaatiina dhiigga daadinaysan iyo xumaantana wadaan joojiya waxaasina waxay ka bilowdeen waa wada ognahay oo wada garanaysaan
wax sharaf iyo qiimo leh maaha nin walba ka dilaysa waa walaalka oo waa abtiga oo waa inaabtiga oo waa gurigaagii dhammaan garaadadeedii iyo salaadiinteedii iyo cuqaasheedii madax dhaqameedkeedii waxaanu halkan ka diraynaa oo baaq fariimeed oo nabadeed uga diraynaa inay colaadda joojiyaan oo caqligu shaqeeyo ilaahayna ka yaabaan aadmigana ka yaabaan dadkana u tudhaan dalkana u tudhaan baaq nabadeed baanu halkan ka diraynaa cali saahid iyo ceelaf weyn labadaba shaqaaqadaa ka taagan ayaannu baaq nabadeed oo nabadgelyo u diraynaa waxaannu leenahay waa idiin ducaynaynaa waxaannu leenahay waa idin karaamaynaynaa waxaannu leenahay lixajeclaannu idinka qabnaa ilmaadeerayaal oo walaalayaal joojiya waxaa nagana ilaahay nagu og yahay ma seexanno idinkunba malaa isle way saysaane hurda noguma jirto calooshaasaa noo laba rogmaysa waa idiin daqmanaynaa waa idinka daqmanaynaa baaq nabadeed waxaannu halka kan uga diraynaa shaqaqooyinka ka taagan cali saahid iyo ceelaf weyn waxaannu idinka codsanaynaa annagoo ah odayaashii labada beelood ee halkan horeba looga soo sheegay abar jeclo iyo arab waxaannu idinku baaqaynaa waayeelkii baa halkan isugu yimi cuqaashii iyo salaadiintii iyo boqorradii iyo garaadadiiba way joogaan waa la soo baxayaa waxaannu idinka codsanaynaa inaa ilaahay ka baqdaan oo dhiigga daadanaya joojisaan halkan waxaannu ka diraynaa baaq nabadeed labada beelood ee walaalaha ah ee ama bariga ku dagaalamaya ama dagaalka ka socda cali saahid labadaa beelood ee walaalaha waxaannu u diraynaa baaq nabadeed waxaannu leenahay walaalayaal xabadda jooja ka xabadda sitow xabadda dhig ka colka soo wadow colka jooji waa idiin imanaynaa waxaan leeyahay labada reer ama labada meelood ee ay ka socoto dhibka ee la sheegay ee cali saahid iyo ceelaf weyn labadaba waxaan leeyahay walaalayaal sidaa ragga hore idin yidhi qaata talada qaata xabad joojinta qaata nabadgelyada ilaahayna ha idin tuso toosan ee ay ku jirto wanaaggu ilaahay waxaannu ka baryaynaa inuu dhibkaa inaga joojiyo intaa sidaa imminka uu joogsay inaannu dib waxba inooga soo celin baaqa nabadeed lambarkow waxaannu ilaahay ka baryaynaa in ilaahay bartaa ku joojiyo colaadda ka jirta ceelaf weyn iyo cali saayid waxaan maqlayey baryahanba waxaannu maqlaynay iyadoo lagu jawaabayo boonkii waxa jabiyey qoladan iyo qoladan boonka raggii ogaan lahaa ee maragga ahaa dee habar sacdii arab bay ahaayeen ilaahay ka baqa oo ilaahay ka xishooda oo colaadda joojiya oo inta wacan waxaa ka badan inta xune inta xun iska qabta guddidii ahayd 20ka ee ka timi ceelka burca la yidhaahdo iyadu isu soo hawlgelisay dad badan oo ilaahay dhowreen soo hawlgeliyeen jiro waxaanu joognay maanta ku 22 soo ma ahayn 20 bishuna waxa weeye 25 shan cashana waa naga horreysay waxaanu nimid dagaalka ka dhacay ceelka ceelaf weyn ee 5 casho naga horreeyay waxaanu joognay sidaan u filayo 22 casho waxaanu halkan ka uga jeednaa inaanu saxaafad ka qabanno wuxuu sheeg iyo taageero iyo wax farid dilkaba cidban waa ka hadli doontaa aad iyo aad baanu ilaahay ugu mahadinaynaa xalay iyo habeen hore iyo habeen saddexaad in habeen barkeedii inta magaalada aanu joognaa nabad bay ahayd xabadi kama dhicin dhibaata kama dhicin intaa ka horreysay 20ka aanu jiray xabadina waa ka dhacaysay dhibaato badanna waa ka jirtay waxuntina waa ka jiray annaga lafteeduna mahalaka farabadan oo rasaas iyo hugaanu dhex maraynay ilaahay baanu u mahadnaqaynaa saddexdaa habeen waanu ladanahay sababta keentay wax ka qabadkaa taageeray waxna taray ee aanu u ducaynaynaa waxa weeye ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland mid haru joogay mid dib joogay ha ahaato ciidanka soo kordhay militariga amarkii adduunyada laga yaqiinay ama waxaan jiray qaatay bilayska iyo ciidanka hore joogana ciidanka lagu soo gaadhay kala dhex fadhiyaan aanu heshiino buu ahaa inta maantana waxay soo saareen amaamiir culus oo dadku u maqlayo aad iyo aad waxaan ugu kalsoonahay in amaamirtaasi fusho sida ay u yiraahdeen u fusho shacabka dalka joogaana sida ay tahay uu qaato waxaanu kaloo aad iyo aad u bogaadinaynaa gobolka maayirada iyo dad badan oo nala shaqeeyay aad iyo aad baan iyagana u soo dhaweynaynaa waxaanu sheegaynaa waanu leenahay dadku wuu ismaqlaa hadduu istilana way isxaqsiiyaa hadduu istilana way iseshiiyaa
saddexdaasaa ceelka la yidhaahdo ceelafoyn gebigeedaba ka maqan waxaanu faraynaa odayaasha oo aanu ku amraynaa odayaasha oo raggii aanu iswada hadallay ee aanu waraaqda ka haynay ka baryayna oo aanu amar ku fulinayna haddii ay diidaanna amar dawladeed ku fuli doonaan in arrintaa aynu isaga nimaadno inaynu dadka heshiisiinno 30 iyo 60 la keeno wuxuu ku kordhalo lagu kordhiyo aad iyo aad rag dambaa ka hadli doona waxaanu ceelafoy farayna oo aanu farayna oo aanu militariga ku raacsanahay oo xukunka ku raacsanahay wixii wax maqal waaya in gacan culus lagaga qabto dalka waayo waa dad cadowa oo isu cadowa oo dadka u imaadana cadowa waxaana ku garanaysaa inay cadow yihiin 8 sanadood dagaalkaasi soconay iyada oo cid waliba ka maagtay oo ceelafoyn cid kasta oo arrinkiisa maqashay ka maagtay annagu waxaanu ahay dee qoladii isaga soo bareeray alxamdulillaah wixii noo qabsoomay intaa noo qabsoomay ka horreeyay xalay iyo habeen hore maxaanku idhaahdaa nalagu soo gaadhay waxay ahaayeen in aanu ka shaqaynay inay isu yimaadaan beeluhu inay nabadgelyo ku dhawaaqaan inay soo gudbiyaan 60 xubnood oo aanu u dhaarinno inaanu ciidamadii meelaha u fadhiyay ay qolo waliba qolada kale ay dhufayska ugu jirtay aanu kala durkino waxyaabo badan way noo qabsoomeen annagu waxaanu ahayn dad ku baaqaya nabadgelyo iyo in la ismaqlo waxaanu dadka ogeysiinaynaa inay amaawiirta qaataan oo waxa ciidanku fuliyay iyo go'aamadu gaaray inay ku shaqeeyaan oo qaataan ayaanu aad u soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay ilmaadariyaal haddaad tihiin ceelafoyn dadku wuu isdilaa waanu heshiiyaa war ceelafoyn laguma hayn karo colaad waxaa lagu hayn karaa nabad iyo xigmad dheeraad ugu horrayn waxaanu baaq nabadgelyo ayaanu ku baaqaynaa annagoo sidaa la sheegay ceelafoyn 22 habeen joognay lana qaybsanaynay dhibka iyo magaraysaayay kala ceyntooda waxaanu halkan galabtara kaga baaqaynaa baaq nabadgelyo waxaanu leenahay wixii inaga dhintay dhammaanteenba waa inaga wada dhinteena ilaahay ha u naxariisto inta inaga dhaawacantayna ilaahay ha inoo bogsiiyo baanu leenahay waxaanu kaloo aanu halkan ka taageeraynaa baaqii ay xukuumaddu halkan ka jeedisay maanta waan halkan ka taageerayaa baaqii maanta ay siisay gudoomiyaha gobolka maayarka degmada iyo maayar ku-xigeenka iyo taliyaha ciidanka qaranka Somaliland baasha fanax waxaan leeyahay amaamirta loo hoggaansamo hal la raaco heer ceelafoyn waxaan leeyahay nabadgelyadu waa idin dan nabadgelyada hal la qaato mid miyiga joogiya mid magaalada joogaba waxaan leeyahay hal la raaco amaamirta dadka doonaya inay colaadu sii socoto ee nabadgelyo darada wada cid kastaba ahaadeene ee doonaya inay xawshu ballaarato oo meel walba ay gaadho waxaanu leenahay dadka waxaan leenahay warkad kaaftooma waxa wadaan waxaanu leenahay waanaanu idinla soconaa ilgaarana waanu idinku eegaynaa dowladda iyo shacabku waa idinku eegayaan ilgaara waxaanu leenahay nabadda ayaa cid walba wadana ama dibadda joogo ama gudaha joogo cid walba nabadda wadana sidii taliyaha generaalka ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland baashe fanax oo maanta kaga sii daayay baaqa ceelafoyn baanu taageersanayo gudoomiyaha iyo baristaafka iyo maayarka iyo maayar ku-xigeenka baaqii ay maanta soo saareen 10kii subaxnimo ee saaka ayaanu taageersanay haddaan nahay cuqaasha gobolka Togdheer ee u soo gurmaday walaalahooda halkan ku dagaalamaya marka waxaanu soo saaraynaa baaqaanu soo saaraynaa wuxuu yahay waanu ku taageeraynaa ciidamada awaamirtooda in loo hoggaansamo